dhacdada gabadhan yar ee Rayaan ma aha dhacdo inaba caadi ah, waa dhacdo runtii mucjiso. Haddii aad muslim tahay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto siina share gareyso si uu gaaro dhammaan dadka muslimiinta ugu cibro qaata. Dhacdadani waa mid ka mid ah aayadaha iyo mucjisaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Gabadhan oo Rayaan lagu magacaabo waxay ku dhacday ceel uu dhirirkiisu gaarayo 60 mitir. Waxa isugu yimid ceelkan oo isugu soo aruuray dhammaan dadkii deegaankaas iyo magaalooyinkaas deganaa, waana ay awoodi waayeen inay soo bixiyaan. Waxa la soo waday wixii cagaf iyo wiishash dhulka lagu qodi jiray ah. Waa ceel 60 mitir ah oo la isugu geeyay caalamkii hormaray iyo xadaaradii oo dhan. Muddo 5 maalin ah ayay dadkan oo dhan oo qalabkooda wata ceelkan dul fadhiyeen, ayagoo isku dayaya inay gabadhan yar badbaadiyaan. Laakiin ugu dambeyn gabadhan yar waa ay geeriyootay. Dhacdadan waxaan ku xasuusanaynaa hadalkii Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Ibn Abbas ku yiri: "Ya qulaam, inni u'allimuka kalimaat wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Ogow Ibn Abbas, haddii ay ummadda oo dhan isugu imaadaan inay wax ku taraan, waxba kuma tari karaan ilaa wax uu Ilaahay ku qoray maahan. Haddii ay ummadda oo dhan isugu imaadaan inay god ka soo saaraan, kama soo saari karaan ilaa Ilaahay inuu nolol ku qoray maahan. Ugu yaraan 3 qof u share garay muuqaalkan page kan follow